gooni wixii noo dhamaysa laakiin Cabdulqaadir Boos wuxuu taaganoo mentala inuu meelaha yimaado yimid wuxuu Facebook jooga wariya ilmihiina la hadla ilmaha xanuunsan qabtiin hadii kale wallahi ya korshan boqolan ku dhufana أنا ده وعيتاي ده عسير والله واركتين وكاله وحار ده عسير وأنا ريدينيو جو وحكودي ده عسير كجوجية سقال باوران ودري معنا ده وعيتاي وحول برحالة ليه هنا معنا ما أنت نكي ليرة ورنا على كوم ولا ودك الدولة إسبدل اللي بحوار دعية إسبدل كان عراء نكي ليرانة إنه سوي استاجور بقى أنا قاعد أحبر جر هدي حتى حالة أنا القيمة أو الرما رد على جهله أنا محترم مدحوينا حتى الشيقة وأنا كوش مانينا فرماجة نوعها كوفرق البديو وقشوي وفرماجة وقشوي حبر جر دولة مرحبان هوي دولة مرحبا في كورة بينه وكوشة ينكوري بينه وكوشة معناها نكي وشوي قرقورة أوجد oo macnaha dadkiina baabi'iyay farmaajiina oo 3 kun oo ciidan u diray magaalada galmudug u diray ninka ka shaqeynaa in habar giiro ah marka ninka daarada aaminsan in macnaheedu ay tahay farmaajana la qabyaalad oo asagu beentan oo wada waayo dadka raba inuu ka gado nin walba waxa nacay waay xumbu cugsay la dhijir nukadu xul waayo xumbu cugsay hadda koran leeyahay Abdulla Ali Gaas aan xamar isla joogna markaas barnaamij ministarka markii shaqadii la kala wareejinayo xasan sheekh asagu macnaheedu waxay tahay أنا ويا la isku dhacay labadooda kulay barnaamij minister wadanka ka wala isku dhacay markaas suuraana qabiil ma jeertaanimo iyo daaradnimo la isoo buriyay waa soo baxay London asku aragnay Abdulla an shaqadii macna shaadaba ma laga dhigay baa lagu saartamiya dadku waa kaftamaan moogta ninkii waxaan baarkaba qodbad fadhiyo niman Turkiis inta isku yeerta dhahay aniga xabar rasiisnimo la iga soo oriyay haweenimo la iga soo waxa wiya ay xamar iga soo buriyay wana horta waxay leeyahay qabyaaladu waa xuntaanimo yow qofka hadii uu xanuunsadana wax daawo ah u leeyahay male macnaheedu waxay tahay qofka haduu xanuunsado marka anu markaan hadalka soo qaadanayo ma aha ninkaas inaan ku aflagaadeynaya ama xumaan aan uga sheegayo ma aha ninkasto iskale ma hawiyaha noqdo ama daaradaha noqdo ama saaka noqdo qolada raba ha noqdo ama meel walba ha joogo Soomaaliya markii nin walba shaqadiisa ay dhamato ama taliyaha noqdo ama sargaal ha noqdo ama ha noqdo madaxweynaha ha noqdo nin walba markii shaqadiisa ay sii dhamaan rabto macnaha batanka ugu dambeeyo inuu ku istaago raba ama jirweynaha ha noqdo batanka ugu dambeeyo oo raba inuu nin walba ku istaago oo raba bamba afona oo jabka kala soo baxa warshala wanaaga ku joogto umada Soomaaliyeed ugu hogaaminayso Soomaalinimada iyo qaranimada ugu hogaaminayso maanta anay qabiil ugu hogaamin qaranimada iyo Soomaalinimada arsal ugu hogaaminayso qabiilkaaduna iyo qaranimada har qaataan qabiil ana wiil reeciyo macna waxbaan kala hadlay jufooyinka xunka la jooji way reeciyo anu boqortooyaan dhicinanahay naga ilaahay wax naga qaada male hawiyana waxaan leenahay walaalayaalow anu hadana reeciyo waanay samarkay dulqaadkuna waa fiican yahay wiyo abgal Cismaan iyo habargeer iyo dhamaantiin anagu wax gooniya ma qaadana habargeer hadanahay reeciyo hadanahay hadii ka wallahi Ukraine camal aanay garaac gaduun shabalaasan aan ka dhigahay wiyo hadana in sheegaarka sadaqada weydin oo umada aad hore u wada weydin macnaheedu waxay tahay dadka Soomaaliyeed hore u wada weydin macnaheedu waxay tahay shabalaasan aan ka dhigaa maahan in umada adinku ma dhageysana adinku leeyahay dhageysanayo maahan umada Soomaaliyeed ma sir u tiin umada Soomaaliyeed ma talaysin maahan inaad iska dhigtiin dad maartay sheeg cali beesteen oo meel iska taagan oo macnaheedu waxay tahay ayagii dhexdoodii isku jeedo mabda'a Soomaalinimo eerada Soomaalida ay ku hadasho waa mabda' Soomaaliyeed waa inaadan dhaafin waxa Soomaalinimo lagu heshiiyay waxaan dadka ma la isku kakabay koonfur galbeed ka keen Puntland ka keen Hirshabeelle ka keen dadkan all injury waay hawiya injury dhexdiisa anaga reeciyo waxa ruucano injury waana maxana la siiyay maxaa haysana Abdulla Galma hadda waa doodaya wuxuu leeyahay aniga gudoomiyaha gobolka Rabayaan ii diiday anoo shaadaba yaa ii diiday معنا الرعيو يا قدوم يا قولك ودي الرعيو بقدوم يا قولك يا إنسان يا ودي الرعيو وهي يا ودي قال محبوب حور عبد قدوم يا قولك أنا لصيا الرعيو وضعنا هاي ولا ريالو أبقى لهم الحويني هاي 60 لصيا قدوم يا قولك ولا ريالو نصيا طلعنا هاي نعلى إنكم وين كان يستاهل ناي متى كله سيا صومالي ده كله حتى سيا وين كان يستاهل أنا نعلى إنكم واي بروني هنقعد دقننا بروني معنا هنقعد دقننا مال جقلك حرنا أنا هنقعد دقننا وحبان كلا قيب صيا ومدي وحبان كلا قيب صيا بروني مال بهنقعد دقننا وحدكوا حسارة قوني أولادين وقتي Soomaali ay jirto wax la xisaabi jirana xisaabnina soo jartana ka gudoomiyaha gobolka ka ah magaalada Muqdisho ka ah oo soo maray waxa ka aha macnaheedu waxay tahay waxa ka aha boqolaal qofood soo martay ogaadeen inuu soo maray umalayna ma sheegteen waxa soo maray ogaadeen waa soo maray habargir waa ka ahaayeen niman la saacada soo maray macnaheedu waxay tahay oo waliba laba jeer biyo masal maray soo mareen gudoomiyaha gobolka ahaayeen marka waxa aanu ka hadlayaa waxay tahay walaalayaal wixii aan madaxyaal nacala in kuma luwaya anaga reeciyo hadanahay nasiya walaalayaal Abdulla Galma adinka anaga aan ka mudana tolanahay hadda abafirish ka dagay walaalayaal nasiya hadii hadalka runtiisa iyo gartiisa la rabo in la qaado anaga cayra walaalina nasiya anaga habargira nasiya walaalayaal waan ka rabnay
anagu ma haysana madaxweyne ma haysana runta markay laga hadlo anaga taliyaha gobolka iyo taliyaha gorgor iyo taliyaha nisa iyo taliyaha booliiska iyo anu maalba kuma jiri kara frontline anaste zana u baahanahay tolanahay waa la isku casuuma baash waa la isku casuumay si xawaale mursada si waka istaayay waa nina walaalkay si mashartan si abgal si qolba oo Soomaaliya si waka istaayay ogaadeen si macnaheedu waxay tahay markii feer la fiiriyo waa jiqlaaq aan oga dhigteen waxa nooga dhigteen adinka in ka soo bilawdo adinkan ku dhamaado marka galbeed waxaan leeyahay madaxweyne meel la salaaxo ka weyn ma jirto walaal wadaas sadanada haysto gacantay kugu jirtaa maantay galmaaxow gacantay kugu jirtaa maantay madaxweyne meel la salaaxo ka weyn ma jirto abgal cismaan walaaleen waxaan leenahay meel ba joogtiin walaalayaal Soomaaliya idinka hogaaminaya hogaan wanaagsan iyo macnaheedu waxay tahay farmaajo aan u shara waa la dagaalay hadii la baaro farmaajo aniga macnaheedu waxay tahay reewi liqsiyaan isla nahay hadii la baaro abtiris hadii la baaro oo wallahi aan ku iri laakiin arrinka kaliya ka rabo waxay tahay in oo wiilaa umada Soomaaliyeed macnaheedu waxay ilaa guday ilaa meel baan geeyna oo mar hore la rabo arrinkan qaabka uu wareejay qaab qalad ahayd inuu raa gala dagaalka siyaasad barro kale geesi waa siyaasad barro because guday uu nageeyay markaas uu yiri gala dagaalka qofkii soo laabtana shabalaasan ka dhiga kama sugayn anagu waxyaalaha raadinay abi inuu la sheekaysan ma rabin anagu wallahi dacdan kula hadlaa wallahi wax bartaanahay Soomaali inaan ka kala jeclayn ilaahay maanta wuu ogyahay qofka Soomaaliga Soomaaliyu yahay qurbaan deganahay qurbaan ku noolahay nin walba maal walba waa soo istaaga wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ahay war waxa adigu taa waxa ka weyn Soomaalinimada waxa adigu aatay mabda ka weyn raayaan la hadana maxaan haysanaa raayaan la hadana wariya anagu ayra maxaan haysanaa maanta gudoomiye gobolka noolama ogola oo wali maana qaadan oo waa u baahanay hadii la siina walaalaha abgal ee anaga macnaheedu waxay tahay anagu xushmeynayaan gaal jecel waa walaaleen waa u baahan yihiin ogaadeen waa u baahan yahay nima kale xawaal waa u baahan yihiin waa nima walaalahayna oo macnaheedu soo jirana warigood jiray oo warigood la yaqaan hadalka rutiisa lagama la xalaado marka maanta hadii anagu aan leenahay wada Allah kuma loo abgaalo sadanada agtiinay taala adduunkana waxa ugu xun macnaheedu waxay tahay nin macnaheedu waxay tahay sadanada agtaalo aan ogeyn waxa ag yaalan aan ogeyn war fiiriday abgal cismaan waa la hadlay sadanada agtiinay taala mana ogid macnaheedu waxay tahay agtiinay taala mana ogid macnaheedu waxay tahay madaxweyne gudoomiyaha gobolka inta wada isku haysto Soomaalina banaanka ka taageen anagu macnaheedu waxay tahay inay samarnay samarkuna waa fiican yahay Soomaaliya dhan inay samarto gudoomiyaha gobol ninka sax u leh inuu qaato oo Soomaaliya xaq u leh inuu qaato macnaheedu waxay tahay nin gooniya oo macnaha number ku qoraya ma jirto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ilaa 20 la gaarsiin kara numberska qof kasta qaadan karo maanta marka Cabdulla Galmaax walaalayaalow iyo abgaalow maanta arrin maartay isha wanaagsan ninkaas maartay la doortay shalay Umar Finisha aha gudoomiyaha gobolka nin abgaalow aha kii ku horeeyay abgaalow aha kii ku sii xigay abgaalow aha naclaan kuma walway walaalaha Soomaaliya waa fiirsanaysaa midda kale wixii adinku ay rabtiin inaad gooni u galashay niman toolaanahay ha keenina wixii Facebook ka keeninina arrinka Facebook ka keeninina wax wanaagsan maahan unuga xunka hebel boss ay dhaano meel ka qaylinaya midkan kale qaylinayo ma qan South Africa ka la leeyahay xasan shaqeel madariin imara la leeyahay macnaheedu waxay tahay wuxuu ku hadlayaa inuu maana fahmin wiilashana Facebook ka qaylina wax gooniye yihiin ma jirto macnaheedu waxay tahay waa loo shaqaystayaal wariya aniga farmaajo asagoo jooga waliga mucaaradan ku ah wax kale lagu maana noqon farmaajo Puntland ka leexawa waxaan wada dagaalay nabada ka jirto dagaal kama jiro dhib kama jiro Jubaland dagaal kama jiro dhib kama jiro macnaheedu waxay tahay wadanka markii la rabo in wax laga qabto gudaha in wax ka qabata waa in hooyada Soomaalida gudaha joogta qaraxna oo ku dhicin dhibaatana sababo 770 na qaatay yaa mas'uulka asam mas'uulka waan reed dalaa way doorada aan u qabsana aniga doorada muxuu uga sameeyay doorada uga sameeyay aniga wax uga sameeyay ma jirto macnaheedu waxay tahay mas'uuliyad qalad qaaday xasan sheekh waxaan leeyahay xasan oo mas'uuliyad ku saaran umada Soomaaliyeed ka saaran tahay anaga noo hilo ku dhimayna wallahi ay helin hada ilaahay ku cadaado hada helido hila wax ugu siido boqos mas'uuliyadda ku saaran kitaabka aad martay aniga bari adoo dib ugu laabana hadaan ku sheega macnaheedu waxay tahay kitaabka iyo diinta iyo quraanka marka gacanta saarto Soomaali aad mas'uul ka tahay kan beedaba joogo kan joogo meesha la yiraahdo kan joogo koonfur galbeed joogo kan joogo meesha la yiraahdo baalka isheeg kan joogo macnaheedu waxay tahay Kismaayo joogo kan Puntland joogo macnaheedu waxay tahay ninka Soomaaliyana waa ku dhaleeli karaa macnaheedu waxay tahay dulqaadkeeda leedahay kan joogo South Africa wuxuu ku noolyahay mugud anaga London joogna waxaan ku noolnahay mugud wali adoo London ka la kuma arag anaguna maalba kuma naa iyo waxaan ku hayaa xasan waan fiican waan wanaagsan hala qaato macnaheedu waxay tahay nasiir raadkeena nasiir in aan soo laabano oo dalkeena deegaankeena inta aan nimaano ka shaqeey oo dadka wax bartay oo aqoon tala oo Soomaaliyeed oo wadanka dacliisa ku nool qolada raba ha noqdo ninka Soomaaliya in wadankiisa u jeclaado ku alay oo natus dhiirigelinay walaalnimo iyo helnimo iyo Soomaalinimo iyo qaraabanimo macnaheedu waxay tahay natus
maxaan ku joognaa annaga waddankan maxaan ku joognaa waddankan anagu ma lihin waddankan runta markii laga hadlo waa in deegaankeena iyo dhulkeena iyo soomaalinimadeena nin Soomaaliya oo muwaadina oo dalkii deegaanka intaba Soomaali macnaheedu waxay tahay kor u qaado oo macnaheedu waxay tahay Soomaali hogaamiye inaan noo noqoto oo macnaheedu Soomaali ay ku soo hirato oo maanta kan ka imaanayo haddii adiga aad meesha ka baxdo ka dambeeyo ka sii dambeeyo oo macnaheedu waxay tahay lagaaga daydo wax wanaagsan lagaaga daydo maahan YouTube la geliyo madaxweynaha noqdo maahan wax wanaagsan in lagaaga daydo adduunku waxba la fiiriyaa nin xil isku dhajiyana nin fiican maahan ana hadda ku sheegay ama taliyaha noqdo ama ha noqdo mataqaana sargaal ha noqdo hadad ku raacaysana ana wax shaqo kuma leeyahay hadad ku raacayso wax shaqo aan kuma sargaal ha noqdo ama taliyaha ha noqdo ama macnaheedu waxa tahay booliis ha noqdo ninka Soomaaliga waa inuu u hoggaansan yahay ama mirta iyo wax ka socdo meesha iyo shaqada ka socoto iyo Soomaalinimada waa inuu daacad u yahay madaxweynihiisa waxaa laga rabaa sharaf iyo karaamo inuu kula dhaqmo mar walba waxa way madaxweyne kii taga marwa habarta ninkii qaba baabada sheekada adiga ku dhalay macas ku yahay adeer wiil ninka hadda koor ajax ma waha waxba ka hadlay ajax waxba ka hadlay macnaheedu waxay tahay ninkii meeshaas galaw macnaheedu waxay tahay madaxweyne laga dhigo mar walba madaxweyne ummadda hogaamiya marka waxaan leeyahay wixii abgaal ka dhaxeeyo abgaal adigu macnaheedu waxay tahay aan gooni u dhamaysta arrinkiina gooni u dhamaysta oo wixiina waxa way jaarur gooni uga macnaheedu waxay tahay haddii wax isku qabtiin iyo haddii macnaheedu waxay tahay ummadda infirsanaysa ummadda ku daydaan la rabaa gooni wixiina u dhamaysta laakiin Cabdulqaadir Boos wuxuu taagan oo mentala inuu meelaha yimaado iyo mid cuno Facebook jooga wariya ilmihiina la hadla ilmaha xanuunsan qabtiin haddii kale wallahi kor 500 ku dhufanaa magac Ilaahay waa dhaar Ilaahay wallahi 500 ku dhufanaa maanta abgal Cusmaanow adinkuna waa saameyn arkaas arrin weyn maanta kala hadla وانا سامعنا كورير كاس او والله يان كورير عبد القادر بوسي عيالك xunka toogada aflagaadada iyo isubinimada iyo saqajaanada ka wado oo toogada si qaladka u isticmaalo hadaan qaban oo iska qabanon odayaashiina dadkina waaweyn nool baa la yiraahdo atisoona una sharajada ma dar koorta waardiya atisoona islaali macnaheedu waxay tahay hadaa gar qabtana garta waa lagu qaaday imaaw meel weyn oo garta lagu qaaday way jirtay macnaheedu waxay tahay abgal weynana oo fadhiyo boqortooyada beesha abgalna ay fadhiyaan abgal Cusmaanna uu dhan yahay waa joogtaa garta harta qaado muuse suudiyo laxo garta qaad kan shalam ku jira ha maanta inuu ka baxo rabaa bal fiirday mid kale lagu bedelaa because wixii adduunka is bedelo adduunka inuu xal isku bedelo raganimada ku jirtaa adduunka inuu is bedelo raganimada ku jirtaa macnaheedu waxay tahay Sheekh Shariif Ayib Xasan Sheekh bedelay Xasan Sheekh Farmaajo bedelay Cabdiqaasim Ayib Cabdullaahi Yuusuf bedelay waxaan waa la isku bedelaya ma ogeyn in meeshiisa sii joogay ma jirto Soomaaliya runta marka isku sheegno nin walba sidii tanagiyo su'aal aqliga lagu aqdo ka galay aqliga qofna waxa lagu ka galaa qofna madaxu ka galaa dad badan oo Soomaaliya waxa jirta markay ay macnaha ama rabaan inay wax sheegaan raba ana inuu yiraahdo ana wax la ma jiraan dadka Soomaaliya waxba la qaybsadaa aqligu macnaha aniga boqolaal aqli badan jirto marka aqliga saliimka aan baro ana wiil raaciyo arrin weyn ana kala hadla boqolaal si qofka kreditkiisa si Soomaaliga qolo rabo noqon kara si qofka kreditkiisa macnaheedu waxay tahay daba caseer wala weerar waa aragteen waa ka hadla waxa daba caseer waa nin reediiniyo jooga waxa ku wadi daba caseer ka joojiya 9 baabuur aan u diray soo fuulaan baabuurta daba caseer anagoo dagaashan waliba aan kula dagaalay in nin dhexdhexaad uusan ahayn markuu Farmaajo joogay sidii macnaheedu waxay tahay nin sadaradan waliis haysanayo oo u dhaqmaayo runta markay laga hadlaba wariga la sidii xoolo loo marqdo adeero macaan waxba la reebtaa sidii xoolo loo marqdo waxba la reebtaa Farmaajo haduu fiican yahay Axmed Islaana kama heliyan Maxamed Axmed Diina kama heliyan waa dhamaan daarad Ismaaciil ani ma adiga dadka ka horkeena maya walaalo wixii Ilaahay kugu tala qaado wixii nasiib qaado anigu kama horkeenin haddii wax la qaybsaday macnaheedu waxay tahay daaradnimo wax ku qaadan kartaa haweenimo ku qaadan kartaa isaaqnimo ku qaadan kartaa nool baa wax u leeyahay qaadana laakiin markii ninka miiska la isla fadhiyo haddii walaalka ka heliyo walaalka macnaheedu waxay tahay kalsooni toos kugu ma qabo waan ina chuqchuqayo Puntland waa ka qabsanaa ina diyaana kugu dira dalkana waa kala wareega ana dalka mas'uulka waxa taana male qofka walaalka kredida loo reebtaa waxba loo reebtaa qofka waxba loo reebtaa adduunka si wanaagsan oo labada hadla jirto si xun si wanaagsan ka fiican waan qofku macnaheedu waxay tahay qofkaasuna uu ogaadaa waxa laga wada hadlayo waa inuu ogyahay marka Soomaali waxay rabaan nin walba wuxuu rabaa inuu asagu wax uu rabo kaaga sheekeeyo marka waxaan leeyahay anigu lafta gareen waa la hadlay telefoon u diray habeen lafta gareen waxaan meesha la leego iyo meesha la yiraahdo baalka ishaq leego iyo burukur leego iyo burukur meesha aan ahayn adigu aad leedahay ii sheeganahay oo macnaha hadda aan xisaabta kugu daray daafad hadii la soo aado nama la yiraahdo gaal jecel degan hadii la aado macnaheedu waxay tahay hadii la aado meesha la yiraahdo qoryoolay iyo hadii marka la aadana ana degan
koonfur galbeed dadka dhamay ka wada dhaxaysaa laakiin adiga maahan wax adiga gooni aad u leedahay dadkaada u sheegto beentaad u sheegto bari dagaal ku gali kartaa un ogaaw dagaanku wuxuu ku fiican yahay in maanta meeqa galmudug isla degan tuutal garay meeqa isla degan sheeqaal wacaysle habargir murusade mareexaan meeqa isla degan weli anoo kala saaraa miya aragtay sida runtaa markaan kuu sheego daacad kula hadlo weli anoo kala saaraa miya aragtay gaal jecel weyne aa kor degan gaal jecel meel kale mabala degaan ay leeyihiin ma jirtaba leego meesha la yirahdo baalka ishag burukur meesha la yirahdo baalka ishag walaweyn meesha la yirahdo baalka ishag walaweyn magaalada kale oo aan jeerada u maray ishag aan marayo magaalada aad igu soo dhaweeyay walaweyn marka laga leexdo waayo meesha la yirahdo baalka balidogle macnaheedu waxay tahay jowhar ilaa afgooy soo gaar macnaheedu waxay tahay anaa degan ilaa leegan gala anigu ku hadla habargir ilaa leegan gala marka waxaan dhahaa koonfur galbeed haddii dadkii macnaheedu waxay tahay aad xildhibaanadii iyo wixii dadkii jiritaankoodii aad rabto inaad kor aad hoos u dhigto haddaad rabto dadka inaad hoos u dhigto haddaad rabto dadku aqliga leeyihiin degaankay degan yihiin waa yaqaanaan degaamada ay degan yihiin iyo meeshay degan yihiin intaba waa yaqaanaan maxaa rabtaa inaad koonfur galbeed ku xalaysa marka intaasoo qof oo meesha kula degan xildhibaanadii waa qaata farmaajo kuu bobo wuxuu ku yiri dadka ma raba inaan arko asagaa kuu sheegay beeno kuu sheegay macnaheedu xasaarad waa kuu xoogi karaa qorqor waa loo xooga waa ogeed runtaan kuu xasaarad waa lagu xoogi karaa nin laakiin meesha degan ma xaqiri kartid macnaheedu waxay tahay qof meesha degan haddaad tiraa waa xaqira dhibkeeday leedahay haddaad tiraa waa xaqira ama xaqiisaan duudsiina haddaad tiraahdo hadda macnaheedu waxay tahay waada xukunkaada waaye waaye meesha inay qulub qulaac ay noqonayo macnaheedu waxay tahay qadku iyo sistamka faraha uu ka baxo hadhowdina laamaha amniga ay ku tagaan oo liiraa meesha dagaal ka dhaca intaas kaliya kuu filan adiga laba qoys oo meesha ku dagaashaa kuu filan laamaha amniga kuu guuray meeshay tagayaan inay xaliyaan loo baahan yahay Unisoma ku kordhagay dheesha dheel iyo sheekooyin iyo xaalkaadi araada ku sheegayo meeqa arrimood oo dhici lahaay anagu aan dadka aan ka istaajinaahon dhahna nacla kugu mulwaa saabanina hadda nimankan hadda la keeno ee waxaan ay wadaan oo inay Puntland gaaraan xataa anigu ma rabo maana intaysa Puntland gaarinaysa waddanka ku sii faafin waxaan rabaa in dalka Soomaaliyeed degaan loo helo oo ummadii Soomaaliyeed kor loo qaado because haday sii aadaan daamir shabalaasa laga dhigaa fiir arigan kala hadlay hadday dhuusa maree dhaafaan oo gaalkacyo la isku dagaalo soo tagi maayaan maalin farmaajo muxuu rabay inuu sameeyo gaalkacyo in labada dhinac oo isku diru rabay kaasina uu yiraahdo boosaaso ka bilow yaal rabaa markaas uu rabo inuu geeyo aniga dadka ku diidanayaan ahay inuu ka rido macnaheedu waxay tahay dagaal uu ka dhexrido meesha la yiraahdo baalka ishag oo ka rido oo lagu qaado ninka la yiraahdo baalka Axmed Islaan waa diiday hal inuu gali karo ma jiraan Axmed Islaan mar seef uu degan yahay dadkina waa fiican yihiin wanaagsan dhibaatana ma jirto dad Soomaaliyeed degan ummadina dagaal ay qaxar ee balaaya ku socoto hadii dadkaas uu seef ay yihiin oo is dhibaato ay jirin dadka loo aada ay jirin in la aada maba ahanba because dhibaato weyn ma jirto ninkaan anigu dawladda iyo ummadda Soomaaliyeed waa taageersan oo yiri 10 jeer oo kala farmaajo markuu laalay ninka ragga laba xareey taabtaan ku yiri ninku ragganimo waa hadlay wuxuu ku yiri anigu kuma diidaninayo asagoo hadla 8 jeer arkaas asagoo hadla Axmed Islaan dadka Soomaaliyeed Axmed Islaan dadkan saaxiibka la ku jira hadduu rabo iyo su'aal noqon macnaheedu waxay tahay laakiin anigu dadkan amaano oo ii wanaagsan ku jira wali dhinaciisa laga marin lix hadal oo leeyahay waa hay'ado record ina meeshan ku haysta hadii Soomaaliya la leeyahay madaxweynaha laga dhigana asaan ka dhigi lahaa maanta waxa uu baa waddanka hadii loo dhiibo madaxweynaha loo dhiibo inuu nabaday kara waa